cabdiwali maxamed cali gaas madaxweynaha dowladda Puntland oo gaaray degmada Dhahar ayaa mashaariic horumarineed oo isugu jira wada laamiya taas oo isku xiri doonta degmada Dhahar ee caasimadda haylaan iyo deegaanada Sheerbi iyo Xingolool ka dhagax dhigay sidoo kale madaxweynaha ayaa mashruuca dhismo guriyo oo wajigiisa hore dadka danyarta ah loogu hirgelin doono 100 guri ka dhagax dhigay degmadaasi munaasabada dhagax dhigga madaxweynaha waxa kala qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Xirsi Cali Timacade iyo Suldaan Maxamed Suldaan Cabdullaahi waxgarad nabadoono qaar ka mid ah golaha wasiirada Puntland ayaa ku sugnaa goobta mashaariicdan horumarineed uu madaxweynaha ka dhagax dhigay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Xirsi Cali Timacade ayaa ugu horeyntii ka hadlay goobta dhagax dhigga munaasabadii labaad aan dheerno wadada Dhahar ila Sheerbi isku xidha waa 30 kiiloomitir Sheerbi ila Xingolool madaxweynaha waxaan Sheerbi ila Dhahar أنا وقرش كنت أروح هنا وأنت سنقص دي لا أنت كلام مدحونا أخو داري دونا وزارة أرمها كلها أيانا مشروع عن شيء غيب كنت أرسل دونتا غيب في عمي كبيحن دونتا وشير بلا دهر إن شاء الله هدير إلهه مشروع عن صحنا بكم دهيت مركز دهر ساكا وحي نصيبه يارتي مدحوينه إنه ولا يحرقه بقول جوري ولقطها قريدتك حواليه كذا مادين يوددا شير إلى حجرال ودهر إلى شيربي وزارة أرمها كدو أي مشروع خرج كسبحين دونتو أنت كلنا ده إسكتش يعني أما نكون بحنه أما مدحوينه ميرون حصار هذيلا رحاه ويجي مركز نصيبه أو يرتين الله مشروع جوهري وزارة أرمها كدو فرونسو سلطان محمد سلطان عبد الله ayaa si weyn u soo dhaweeyay mashaariicdan madaxweynaha oo ka dhagax dhigay degmada Dhahar sidoo kalena waxa uu bogaadiyay booqashada uu ku yimid gobolka haylaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa booqashada ay ugu yimaadeen iyo inta ay nala joogeen iyo inta ay joogeen shaqada madaxweynaha iyo wafdigiisa ay qabteen mashaariicda runtii gobolka ay soo gaarsiiyeen oo balaaran intaba waa uga mahad celinaynaa mahad celin ka bacdi run ahaantii waxa xusuus mudan goboladan haylaan iyo sanaag madaxweynuhu mashaariicda uu qaarna fuliyay oo hadda gabagabo ku dhow qaarna uu maanta dhagax dhigay oo ah infrastructure-ka kaabayaasha dhaqaalaha dariiqyada wadooyinka laamiyada goboladan tan iyo xorriyadii 1960gii ma soo gaarin maanta ka hor xaqada wanaagsan aad baan madaxweynaha iyo dawladdiisa uga mahad celinaynaa annaguna insha Allah wixii dhinacayaga iyo karaamkayaga ah waxaanu ku dadaalaynaa hadii Allah idmo inaanu dadaali doono oo aanu arrimaha qaybta aan ku leenahay aanu ka qaadan doono hadii Allah madaxweyne cabdiwali maxamed cali gaas ayaa gabagabadii ka hadlay goobta markale waa bogaadinaya dhagax dhigga wasaaradda arrimaha gudaha maanta bilad baan siinayna insha Allah sababtu waxa weeye boqolkii guri iyo qaybtii facekii koowaad ee wadada oo ah Sheerbi ilaa Dhahar in ayagu ay lacag xamaray $3 milyan oo كان بهذا الرئيس طبعا انت كلنا ودنا ما يصيرنا انا دhammaystirna ila xingolool hadii ilaahay yiraahdo marka mashruuca isku dhaqaalay waana bilowday cidii diriye u maleynaysan waxa weeye waa dab weeye wax sheeka ma Yahya Nuur Muumin warbaahinta dowladda Puntland magaalada Qardho